kulan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa macnaha magacyada shanta shirkadood ee baabuurta ugu caansan adduunka soo saara. In badan oo inaga mid ah waxay leeyihiin gawaari dalal kala duwan lagu farsameeyay, waxayna leeyihiin moodallo kala duwan sida gawaarida Aasiya, Yurub iyo Mareykan. Badankeen waxaan jecelnahay inaan yeelano noocyo gawaari ah oo aan weligeen ku riyoon jirnay, laakiin weli ma ka fikirtay macnaha magacyada shirkadaha baabuurta ugu caansan adduunka? Maxayna ka dhigan tahay magaca shirkad kasta sida Mercedes iyo BMW? Haddaba muuqaalkan ayaan idinkula wadaagayaa. Shirkadda koowaad iyo baabuurka koowaad ee soo qaadan doono waa BMW. Jarmal ahaan macnaheedu waa British Motoren Werk, oo macnaheedu yahay warshadda soo saarta matoorada ee Bayer waa gobol Jarmal ah oo caasimadiisu tahay magaalada Munich. Waa shirkad caalami ah oo Jarmal ah oo soo saarta gawaarida iyo mootooyinka. Shirkadda waxaa la aasaasay sanadkii 1916 iyadoo soo saari jirtay matoorada diyaaradaha. Baabuurta shirkadda waxaa lagu suuq geeyaa magaca BMW, Mini iyo Rolls-Royce. Mootooyinkeedana waxaa lagu iibgeeyaa magaca BMW Motorrad. waa mid ka mid ah shirkadaha ku tartama suuqa baabuurta adduunka, waxayna tartan adag oo dhanka baabuurta ah la gashaa shirkadaha kale ee caanka ah ee Jarmalka sida Mercedes iyo Audi. Sanadkii 2015 BMW waxay ahayd shirkadda labaad ee soo saartay baabuurta ugu badan adduunka, iyadoo la soo saaray 2,279,503 baabuur. Shirkadda labaad iyo baabuurka labaad ee eegi doono waa Mercedes-Benz. Magaca shirkaddan reer Jarmal wuxuu dib ugu noqonayaa Mercedes Schilling, oo ahayd gabadha madaxii hore ee tartamada u qaabilsanaa shirkadda, kaasoo la oran jiray Emil Schilling. Astaanta xidigta saddexda gees leh ee shirkaddu adeegsato waxay ka timid fikrad soo saarista matoorada loo isticmaalo hanaanka isku socodka saddex geesoodka ah ee dhulka, hawada iyo badda. Mercedes-Benz waa shirkad baabuur oo caalami ah oo Jarmalka laga leeyahay, waxayna hoos tagtaa shirkadda Daimler. Mercedes-Benz waxay caan ku tahay soo saarista gawaarida raaxada, gawaarida waaweyn ee xamuulka, basaska iyo gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta. Xarunteeduna waa Stuttgart oo ku taal gobolka Baden-Württemberg. Calaamadda shirkadda waxay markii ugu horreysay soo ifbaxday sanadkii 1926. Sanadkii 2018 Mercedes-Benz waxay noqotay shirkadda ugu iibinta badan baabuurta raaxada adduunka, iyadoo iibisay 2.31 milyan oo baabuur. Shirkadda saddexaad ee soo qaadan doono waa Ferrari. Waxaa loogu magac daray aasaasihii shirkadda ee Ferrari Enzo. Waa mid ka mid ah shirkadda baabuurta Talyaani ugu caansan adduunka. Xarunteeda rasmiga ah waxay ku leedahay dalka Talyaaniga, gaar ahaan magaalada Maranello. Waxaana aasaasay shirkadda Enzo Ferrari sanadkii 1947. Shirkaddan ayay shacabka Talyaanigu u haystaan inay tahay midda ugu caansan taariikhda soo saarista baabuurta. Laga soo bilaabo 166 oo ahaa gaarigii ugu horreeyay ee shirkaddu soo saarto ilaa kan ugu dambeeyay ee ilaa Ferrari. Shirkaddu waxay had iyo jeer kicisaa dareenka dadyooga jecel gawaarida. Aasaasihii shirkadda ee Enzo Ferrari wuxuu kaloo jeclaa inuu noqdo gaariga Ferrari tusaale farsamo oo qurux badan. Ragga raba inay naftooda ku abaalmariyaan, inay fuliyaan riyadooda iyo inay muddo dheer ku raaxaystaan nolosha xiisaha leh ee dhalinyaranimada. Shirkadda afraad waa Nissan. Markii hore shirkadda waxaa loo yaqaanay Nippon Sanjo, oo macnaheedu yahay farsamada Japan. Markii dambe magaca shirkadda waxaa lagu soo koobay Nissan. Shirkadda Nissan Motors waxay soo saartaa gawaarida Japaanka ah, waxaana la aasaasay 1932. waxayna xaruntoodu tahay Yokohama, gobolka Nakagawa ee dalka Japan. Baabuurta ay soo saartay shirkadda Nissan waxaa ka mid ah Altima, Maxima, Thunder, Murano, Armada, X-Trail, Gloria, Jaina, Patrol, Datsun, PKB iyo kuwo kale oo badan oo caan ah si weynna ugu faafay adduunka.
sida aad la socotaan shirkadda Nissan ayaa qarka u saarneed inay kacdo sanadkii 1999 laakiin waxay xulufo la noqotay shirkadda gawaarida Faransiiska ee la yiraahdo Renault oo magacawday ninka labaad ee Renault waqtigaas mudane Carlos oo noqday agaasimaha shirkadda Nissan kaasoo sameeyay isbedel tayo sare leh wuxuuna shirkadda ka badbaadiyay inay musallafto wuxuuna u bedelay shirkad la tartamaysa shirkadaha waaweyn ee gawaarida oo waxay noqotay shirkad ku baayac mushtarta macaashkeeda saafiga ah shirkadda ugu dambaysa ee muuqaalkeena ku soo qaadan doono maanta waa Toyota magaca Toyota ayaa ka yimid aasaasihii shirkaddan ee Kijiro Toyota waa shirkad soo saarta gawaari wadamo badan laga isticmaalo oo reer Japan ah oo xaruntoodu tahay Toyota gobolka Aichi ee dalka Japan sanadkii 2017 qaab howlwadeennada shirkadda Toyota waxay gaareen 364,445 shaqaale adduunka oo dhan ah September 2018 waxay shirkaddu noqotay tan lixaad ee ugu weyn adduunka marka loo eego dakhliga soo gala laga soo bilaabo 2017 Toyota waa shirkadda ugu weyn ee soo saarta gawaarida Toyota waa shirkaddii ugu horeysay ee soo saarta in ka badan 10 milyan oo baabuur sanadkiiba tan iyo sanadkii 2012 markii ay sidoo kale shaacisay in wadarta wax soo saarkeeda ay gaadhay 200 milyan oo baabuur Toyota waa shirkadda ugu weyn ee dalka Japan marka laga eego qiimaha suuqa iyo faa'iidada laga soo bilaabo bishii Luulyo 2014 qiimaheedu waa in ka badan 2 jeer kan SoftBank Group oo kaalinta labaad galay Toyota waa hogaamiyaha caalamiga ah ee iibinta gawaarida korontada ku shaqeeya waana mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee kor u qaadaya soo saarista gawaarida isku dhafan ee adduunka Toyota sidoo kale waa hogaamiyaha suuqa ee gawaarida ku shaqeeya shidaalka iibsashada guud ee adduunka ee moodalada gawaarida Toyota isku dhaf ee Lexus ayaa gaaray 10 milyan oo gawaari bishii Janaayo 2017 shirkadda waxaa aasaasay Kijiro Toyota sanadkii 1937 iyadoo ahayd dooqa labaad ee shirkadda aabihiis Toyota Industries si ay u soo saaraan gawaarida 3 sano ka hor 1934 iyadoo shirkaddu weli ka tirsan tahay Toyota Industries waxay soo saartay motorkoodii ugu horeeyay No A iyo baabuurkoodii ugu horeeyay ee rakaab ah 1936 intaas ayaan ku soo gunaanadeena warbixintan oo aan ku eegnay magacyada 5 shirkadood ee baabuurta ugu aansan adduunka soo saara fadlan aragtidaada nala wadaag haddii aadan muuqaalka hore like u saarinna waxaynu kaa codsanaynaa inaad like saartid si aan u ogaano inta qof ee xiiseynaysa warbixintan mahadsanid waan kaaga mahadcelinaynaa daawashadaada